marka hore waxaan si farxad leh u soo dhaweynayaa walaalkay Suldaan Abubakar Cilmi Wabar oo maanta dalkiisii hooyo aanu si qalbi furan oo kalgacal leh ugu soo dhaweynayno. imaashiyaha Suldaan Wabar waxa ay ka dhalatay siyaasadda madaxweynaha ee wada jirka ummadan iyo wada socodkeeda in waqti la geliyo in juhdi la geliyo inaanay Soomaaliland qof ka maarmin inaanay Soomaaliland cidnaba ka maarmin tusaale fiican oo maanta shacbiga reer Soomaaliland la nool weeye. Suldaan Wabar waa naqaanaa waa nin muddo halgan ku soo jiray halgankii uu ku soo jiray iyo wixii uu doonayay ee ahayd Somaliland wada jirta oo wada socota kama hadhaya Suldaan Wabar laakiin isagoo inala jooga oo suldaankeennii ayuu taladiisa inoo sheegayaa madaxweynihiisii la kulmaya dadkiisii dhex fadhiisanaya wanaagoodii iyo wada jirkooda iyo wada socoshadooda u ka shaqeynaya haddii Ilaahay yiraahdo. tan waxay tusaale u tahay madaxweynuhu inuu ballanqaadyadiisii la nool yahay oo ku shaqeynayo haday mid wax qaba tahay iyo haday mid wada jirka ummadda iyo xoojinta midnimadeeda ba ay tahay. arintan run ahaantii mahad weyn waxa si gaar ah u leh dadkii ka shaqeynayay. xukuumaddan waxay ka shaqeysaa arrimo fara badan oo ay si hoos uga shaqeyso oo maxaan ku raahdaa loo safro oo wanaaga oo aqoonsiga oo dib u heshiisiina oo isu keenida oo soo xodxodasho run ahaantii arrintan dadkii ka shaqeynayay laba nin baan jecelahay inaan si gaar ah ugu mahadnaqo. maxaan ku raahdaa nin waa Jaamac Gaabush oo halkan inala jooga oo suldaanka intaas oo goor maxaan ku raahdaa la hadlay adisaba ugu tagay iyo sidoo kale rijaal oo isaguna maanta inaga maqan oo mas'uuliyiinta dawladda kamid Cabdilxaliim Rijaal oo isagana runtii aan jecelahay inaan u mahadnaqo. hadalku waa kooban yahay waxaan rabaa inaan Soomaaliya u sheego oo Xasan Sheekh u sheego Somaliland dhaqan bay leedahay waa iskhilaaftaa wax waa isku diidaa se kuma kala tagto waa isxodxodataa waa isu guura bahalaysaa waa isu timaadaa waa isqancisaa waa isdhagaysataa dabadeetana jid bay wada qaadaa. xasanow maanta baylah weyn baa Muqdisho ku taala waxa ku taala inaad doorasho qabato oo dadkaaga badbaadiso oo dadkaaga dhagaysato. waxa ku taala inaad amnigii dalkaaga soo celiso waxa ku taala haybadii iyo sharaftii dadkaaga inaad soo celiso. Hargeysa iyo Boorame iyo Laascaanood shaqo ku taala ma jirto. ceeb waxaan ahayn oo aad uga dhaadhacaysaana ma jirto. dadka reer Boorame Somaliland iyaga dhistay iyaga leh juhdiga ugu badan iyaga galiyay halka lagu soo unkay dastuurkeeda lagaga soo shiray shirkeedii ugu cuslaa institutionska dawladnimo maxaan ku raahdaa saldhiga u ahayd lagu soo dhisay waa Boorame weey iyaday ahaanaysa waxa uu Xasan ka filaya halka ka heli maayo dadkaasaan geyn dadkaasaan dhaqan ka lahayn dadkaasaan dad goba oo aan dhageysanaynin nin ka soo doolaala tagay Muqdisho. walaalayaalow annagu haddaan reer Somaliland nahay imika waxaan ku jirnaa labadii usbuuc ee xorriyadda ay May baa ku jirnaa waa dabaal degaynaa farxadaha ugu waaweyn ee ku dabaal degaynana waxa ka mid noqonaysa inuu walaalkay Suldaan Wabar maanta halkan nala joogo uu nala dabaal degayo haddii Ilaahay raado insha Allah. waxa u dabaal degtaan samaysta waxa ku faraxdaan samaysta wax ummadda Soomaaliyeed dhagaheeda u wanaagsan samaysta. Somaliland iyo naxligeeda iyo kala qaybinteeda lacagta ku bixinaysaan ceeb baa uga dhaadhacaysaan iska daaya walloonay soo noqonaynin
oo aanay taa ku imanaynin oo aanay taa ku samaysmahaynin waxaan shacabka reer Somaliland u soo jeedinayaa fursadan ka faa'iideysanaya aan gacmaha isqabsano sida walaalkeen wabar u soo noqday ee uu maanta inoola joogo ayay kuwa laasacaano joogaanay noogu imanayaan waana ka shaqeynaa haddana waa laga shaqeeyaa cid xukuumadda kamid ah baa ka shaqeysa maxaan ku raahdaa dad badan baa inagala shaqeynaya waa inoo imanayaan xilligeeda hadii Ilaahay raahdo insha Allah Somaliland oo wada jirta oo meel wada socota oo horumartay waa himilada madaxweynahan waana hirgelisaa